بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده tutorial كيني كفايدة قون عشر كيني تحناين كبرونيني principles of accounting عشر كيني ugu dambeeyay intaan xisaabta loo galin waxa weeyaan tarial balance waxa la yiraahdaa hadhaaga sida ugu fudud ama qeexitaanka ugu fudud ee tarial balance-ku waxa weeyaan hadhaaga ama lacagta ugu dambaysa ee account kasta marka la soo sameeyo posting hadhaaga ugu dambeeya marka la soo kala jaro debit iyo credit ayaa la yiraahdaa tarial balance-ku waxa weeyaan liiska uu ka kooban yahay accounting dhammaan account-yada iyo their balance iyo hadhaagooga muddadaas soo dhaco dhan ayaa la yiraahdaa tarial balance waxa la yiraahdaa dhammaan liis account-ga bishii oo dhan dhacay wixii account dhacay bishii oo dhan iyo hadhaagooga marka la soo wada kala jaro debit iyo credit-kiisa ayaa la yiraahdaa tarial balance ujeedada loo sameeyo purpose ama ujeedada loo sameeyo tarial balance-guna waa in la caddeeyo in xisaab ahaan ay isleeyihiin debitkaaga iyo credit-kaaga markaad samaysid ka bacdi posting markaad soo sumariskaraysid ee posting ku soo samaysid general ledger post markaad ku soo samaysid ee aad iswada leeyahay account walba soo saartid hadhaagiisa inay isleeyihiin debit iyo credit-kaagu ayaa sababta ah loo sameynayo tarial balance also wuxuu noo sheegayaa uncover error khaladaadka uncovering error in journals and postings khaladaadka aan lagu sheegin journalka ama postiga ee aan ku caddayn ayuu inoo sheegayaa tusaya haddii aad qaladaad samaysid ayuu ku caddaynaya ku tusaya oo debit iyo credit-kaagu aanay isleekeenin ayuu ku caddaynaya khaladaadkaad samaysay debit iyo credit-ku aanay isku leekeen habka haddaba procedure-ka ama qaabka ama habka ama steps-ka loo marayo in la xisaabiyo ama la diyaar gareeyo tarial balance-ga wuxuu ka kooban yahay saddexdan qaybood markaad heshid ayaad samayn karaysaa tarial balance waxaa la yiraahdo adiga oo taabanaya halkaas bartaas baad saa u klik garaynaysaa markaad saa u klik garaysid si aad ula socotid wax kasta oo soo gelin saddexdaa qaybood markaad heshid ayaad samayn karaysaa waxaa la yiraahdo tarial balance waa inaad saddexdaa step martaa ama hab ama tallaabo aad martaa ka koowaad waxa weeyaan waa inaad list garaysaa account kasta magaciisa iyo balance-giisa aad ku qortaa meesha cash iyo waxa debit tahay debit-keegii $1 baa hadhaagii soo hadhay ka soo hadhay hadhaagii markaan xisaabinay aan kala jarnay wixii credit galay iyo wixii debit galay cashka intii soo hadhay ayaan gelinaynaa tarial balance ayaan ku qoraynaa cash iyo balance-geygii hadhaagayga debit ku qorayno total debit and credit column iyo waxaan sameynaynaa marka taas waa column-kaas magacaad ku qoraysaa column kalena waxaad sameynaysaa debitka iyo credit column ahna waad sameynaysaa ood ku qoraysid oo totalka ogaad ku qoraysaa lacagta totalka hadhaaga kuu soo hadhay marka debit iyo credit-ka ay kala jartid totalka kuu soo hadhay ama hadhaaga kuu soo hadhay ee aad markaa samaystay postiga aad kala jartid debit iyo credit-ka dhammaan bishii wixii soo dhacay transaction ayaad gelinaysaa debit iyo credit column-ka kii ay ahayd marka dambena waxaad qoraysaa inay isleeyihiin oo tijaabisiin ama soo saaraysaa caddaynaysaa inay labada column two columns equal inay isleeyihiin debitkaaga iyo credit-kaagu inay isleeyihiin aad check garaynaysaa haddii isleekan waayo waa kaa khalad tarial balance-ga dib baad ugu noqonaysaa si ay isu kala leekaadaan intaanad wax kale step kale aanad qaban ama hawl kale aan gelin tarial balance qaabkiisa ama formkiisu waa sidaas oo kale tarial balance ayaad ku qoraysaa xagga ugu sareysa report kasta
shirkad kasta ama company kasta waa isku mid trial balance-igu waa isku nooc qaabkaas uma noqonaya waxa kaliya isbedel sameynaya tayd instruction-ka ama qaabka uu u qoran yahay xaggaas trial balance kaga wada qorantay company-ga ugu yar ilaa company-ga ugu weyn company-ga magaciisa oo ku xigsiinaysa waxay tahay inuu adeegsato trial balance inuu qorayso mar walba waxaa la sameeyaa bishu markay dhamaato 30ka bisha ama 31ka bisha kolba bishu halka ku dhamaato ayaa la sameeyaa marka taas halkaas ku qoraysa kabacdi halkan waxaad gelinaysaa sidii step-kii koowaad account-nadii oo dhan magacaantooda aad gelinaysaa marka labaad waxaad qoraysaa debit iyo credit marka saddexaadna waxaad qoraysaa hadhaagaagii account walba hadhaagiisii hadduu credit galay hadduu debit galay ayaad gelinaysaa marka total labadaas aad soo saartid waa inay debitkaagu waa must inay debit iyo credit-kaagu ay isleekaadaan haddii ay debit iyo credit-kaagu isleekaan waayeen markaad soo gelisay account-nadan oo dhan waa kaa khalad waa soo check-gareynaysaa postigaaga soo wada check-gareynaysaa inaad si sax ah u soo kala jarjartay oo imika renting expense-gani waxa weeyaan hadhaaga renting expense-ga marka laga jaro inta lagugu leeyahay inta aad bixisay ayaa hadhaaga ku soo hadhay ayaa halkan la gelinaya surface revenue-ga haddaad imika ka dhigtid 10,000 oo xaggan debit-ka soo gashid ama postiga markaad sameynaysid haddaad uu ku noqdo debit waa revenue oo always normal balance-giisu wuxuu ahaa credit marka postiga markaad soo sameynaysid waa inuu mar walba noqdaa bayn soo ndiri normal balance-giisu waa inuu balance-gaaga ku noqdaa haddii kale uu kaa khalad noqonaya wuxuu saameynayaa trial balance-gaagan haddii imika cashkaas normal balance-giisu cashku waa asset-kuna uu normal balance-giisu wuxuu ahaa debitkii haddii aad cash gelin weydid wuxuu kuu sameynayaa dhibka u keenayaa oo qaladka sameynaya trial balance-ga ayuu qalad gelinaya oo halka haddaan gelino isma leekaanayaan markaa si walba haddii aan sameyno marka intana gelino credit isma leekaanayaan debit iyo credit marka waa in mid walba aad xifdisan tahay oo taqaantaa account waloo halkan ku jira normal balance-giisa uu yahay debit iyo credit ku yahay markaad postiga soo sameysay hadduu kuu soo bixi waayo normal balance-giisa saxda ahaa sida cash oo kale inay debit tahay hadhaaga ugu dambeeya waxaad hubinaysaa dib baad u hubinaysaa waxba ka qaldan waa inaanay debit iyo credit-kuna ay isleekaanaan must weeyaan equal in noqda mar walba waxaa jirta limitation baa jirta ama waxyaabo caqabado jira oo trial balance-ga aanu cadaynayo trial balance-gu trial balance-ga markaan leenahay inooma cadaynayo all transactions have been recorded and diiwaangelinay iyo literature-kaan sameynay balance-gaan soo saarnay inay yihiin correct isagu inooma cadaynayo isagoo debit iyo credit unba isku kendelitrayaa inay saxsan yihiin hadduu waxaa jiri karaa qaladaad fara badan oo ka jira trial balance-ga ifan xataa haddii ay debit iyo credit-kaagu ay isku kala leekaadaan oo ay sax ku noqdaan haddana qaladaad fara badan ayaa jiri doona marka ma saxay isagu qaladaadkaas yani muhiimadu waa sidaas trial balance-gii trial balance-gu wuu balance garoobi karaa isaga oo transaction-kaagu trial balance wuxuu ku noqon karaa isku mid buu ku noqonayaa ama uu isleekaanayaan debit iyo credit-kaagu isaga oo trial balance-gaagu ama report-kaaga diyaargarinaysay transaction-kiisu aanu journalize garaysnayn baa journal baan lasoo sameynin waxaa kale oo uu saxsan karayaa adigoon postiba samayn oo corrected journal entry is not posting adoo correctiga journal entry-ga si saxaba u gelin ayuu ku samaysanayaa oo haddaad iska qortid imika cashka hadhaankaaga waa 10,000 aanay company-gaaga kuugu jirin credit-kii inta in leegna aad gelisay debit-kina inta in leeg gelisay isagu mar walba sax ku noqonaya trial balance-gu marka waxyaabaha aan trial balance-gaagu noqonayo mar walba sax iyadoo waliba qalad ku jirta oo qaladkaaga imika transaction-kaagu isagoo sax ahayn buu sax noqonaya oo debit credit-giisu isleekaanaya adoo soo sameyn correct journal soo sameeyay entry is not posting journal-kaaga adoo soo saxay baaba entry-ga postiga gelisay adaan gelinba sax haddana ma noqonayo ta saddexaadna waxa weeyaan journal entries-ka postigaaga adoo 2 jeer geliyay macnaheedu labada jeer waxa weeyaan
debit naado galiye credit naado galiye labada jeer bal galiye lacag isku mid ah hadaad galisid debit iyo credit oo isla kanay marka waayo labada dhinacba waa isla leeyihiin hadaad isticmaashid lacag khalada hadii imika 900 company-gu isticmaalay oo expansion kharash ah hadii aad galisid 15,000 kharash ah labada dhinacba debit iyo credit-kiiba lacagtu waa khalad amountigu laakiin oo journalka aad soo gelisatay laakiin notarial balance-gaagu waa qalad laakiin waa ku sax notarial balance-gaagu wuxuu sameysmanayaa equal debit iyo credit-kiisi wuu isleekaysiinaya haddaad samaysid offset ku samaysid bedel error qaladka haddaad isku samaysid isdaba marisid oo error transaction error wax la yiraahdaa jira ama omission oo ah inaan anoo qorayo 265 haddii aan u qoro markaan transaction ka sameynayo 567 journalkaygu labada dhinacba aan geliyay 567 oo hal number man isdaba mariyay nambarada ka dhacay markaan qorayo qoraalka ama 0 baan ku darsaday 0 haddaan qoray marka 100,000 boqolkii laba 0 soo raacaan haddaan 0 raaciyo inaad marka transaction gelinayay 1,000 iyo 1,000 marka waa qalad bay ku jirtaa xisaabtaadii laakiin notarial balance-gu wuu saxsan yahay wuu sax u soo saaraya notarial balance-giisuna qaabkiisu sidaas uu mar walba noqonaya company kastaba ha ahaadee halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tutorial-keena ku badanayn maanta notarial balance-ga casharka ku xigana waxaan baran doonaa xisaabtii inagoo ka soo bilaabayna step-kii koowaad ee transaction-ka ka bacdina ilaa bil 30 isho transaction kala duwan oo dhacaya ka bacdina aan analyze gareynayno aan journalize gareynayno ka bacdina aan post gareynayno ka bacdina aan sameynayno cash owner equity-kii iyo balance sheet-kii wixii oo dhan aan soo baranay oo dhan ayaan sameynaynaa hadda imika xisaabtii insha Allah ayaan geli doonaa fadlan subscribe garee ka faa'iido qoon oo asxaabtaadana la share garee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته